barnaamijkan caawa waxaan ku soo qaadanaynaa waraysi aanu isaga oo hoygiisa magaalada Hargeysa ku sugan ka qaadnay Suldaan Maxamed, Suldaan Axmed, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Diiriye oo ka mid ah madax dhaqameedka ugu magaca iyo faca weyn Jamhuuriyadda Soomaaliland. Annagoo wax ka weydiinay xaaladaha dalku maanta uu ku sugan yahay, arrimaha doorashooyinka hadday tahay, arrimaha nabadgelyada hadday tahay, arrimaha dalalka dariskeena inaga socda hadday tahay. arrimaha ayaan rabnaa suldaanka inaan wax ka weydiino aad iyo aadna waa uga mahadnaqayaa suldaanku inuu waraysigan uu kaga warramayo xaaladda dalka uu naga ogolaaday. Suldaan aad iyo aad baan mar kale kugu mahadnaqayaa aniga iyo dhageystayaashuba. Waxa aan kugu soo dhaweynayaa marka ugu horeysa Ubaxle Media 24. intaas kadibna waxaan jecelahay inaad xog guud naga siiso xaaladda dalka maanta oo dhinac kasta ah, maadaama aad gudaha dalkana ku sugan tahay, madax dhaqameedka dalka ugu faca weyn aad ka mid tahay. guud ahaan xaaladda dalka dhinaca nabadgelyada, dhinaca maxaa la yiraahdaa arrimaha doorashooyinka iyo rajooyinka laga qabo, dhinaca dalalka dariska ah ee dhibaatada iyo caqabadaha inagu haya xagga maxaa la yiraahdaa shaqaynta iyo jabhadaha. bal arrimahaas oo dhan Suldaan adoo ka warramaya waxaan jecelahay inaad bulshada la wadaagto. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين. عبد الرحمن iyo Ubaxle Media oo igala soo xiriiray wadanka boqortooyada Ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham anigoo Suldaan Maxamed, Suldaan Axmed, Suldaan Cabdiraxmaan, Suldaan Diiriye oo ku sugan gurigayga magaalada Hargeysa. aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa Cabdiraxmaan iyo Ubaxle Media ba. xaaladda dalka aad weydiisay Cabdiraxmaan oo dalku de kulay wax badan idinkuma seegana oo media da wax walba kala socotaan, laakiin maadaama aanu gudihii ku jiro waa un kulay balin xog kala dheeraad aanu iftiimino. xaaladda dalku meeleedii aad u wanaagsan ayay maraysaa, maasha Allah, oo de waxyaabo fara badan baa runtii sidii loogu talagalay u socda, maasha oo Allah, arrinta doorashooyinku ay ka mid tahay, oo deganaashihii amniga ay ka mid yihiin, oo ciidamada qalabka siday iyo dee si ay waajibaadkooda u gudanayaan uu ka mid yahay. maasha Allah. marka kolay runtii waxaan ku soo ururin karaa un meel fiican buu dalku marayaa, hase yeeshee dee noloshuna qabiyo ma weydo. waxyaabo fara badan oo aynu hiigsanayno ayaa jira. laba qodob ma laakiin carabka ku dhufan doonaayo Cabdiraxmaanow. sidaad og tahay waxaa jira cadow ay Jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay oo dad inaga mid ah oo magacyo jabhadeed sheegta, wadamada jiiraanka qaar ka mid ay u gacan haadinayaan oo shirar lagu gelayo oo aad moodo dhagar in halkaas Soomaaliland looga soo maleegayo. taa waxaan odhan lahaa wardanta ummadda reer Soomaaliland iyo taa wadamada dariska midna kuma jirto in jabhado inta la abuuro wadamada dariska la isaga yeedho. dal waliba waa uu ka damqanaya, ama geed walba Soomaalidu waxay tiraahdaa in gubtaa way hoostaa. dal waliba cadow baa uu leeyahay iyo ummado ku kacsan. marka haddii halkan looga gacan haadiye Hargeysa raalli gelin mayso wadamada qaarkood. marka weliba innaga dee nidaamka multi party systemka iyo dimuqraadiyaddu waynu ognahay, madaxweynihii shanaad baynu maraynaa muddo 30 sannadood. wadamada qaarkood baynu ognahay 25 sannadood aan la isbedelin. marka waxaan leeyahay wardantiinu kuma jirto, danta geeska Afrikana kuma jirto, derisnimaduna kuma jirto. waxyaabaha qaarkood dib uga fadhiista. dadkeena had iyo jeer magacyada jabhadaha la meeraysanayana waxaan rajaynayaa inuu leeyahay caqliga u soo celiyo dantooda iyo danta dalkuna ay ku jirto midnimada iyo wadajirka iyo walaalnimada ummadda reer Soomaaliland, oo ay ka shaqeeyaan oo wixii ay tabanayaan dalkooda gudihiisa ay la yimaadaan. taas waa taa weeye. Cabdiraxmaan, su-aasha labaad ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee aad weydiisay, runtii doorashadii meel wanaagsan bay dee maraysaa. komishanka doorashooyinka qaranka waa hay'ad farsamo oo u igmano waajibaadkeeda dastuuriga ay tahay. waa ku ammaanayaa. maanta Nairobi bay u duuleen oo kulay hawlo shaqa ay u baxeen. shalay toor saxaafadeedkii u dambeeyay sii daayay in halkaa hawsha u marayso. waa ku bogaadinayaa madaxweynaha qaranka iyo xukuumadda garwadeenka Kenya oo ku bogaadinaya lacagtii 7.5 milyan inay u shaqeeyaan imika ay codka ku dhacday sida gudoomiyaha komishanku inoo sheegay. labadoodaba waa ku ammaanaya waana ku bogaadinaya. waxaan leeyahay waajibaadkiina dastuuriga ayaa gudanaysaana halkaasi ha laga sii wado. mid un baan ugu dari doonaayo. waxaa jira ururadii iyo xisbiyadii qaranka doorashada isa saarkaa waa tii berigii la mudeeyey odayaasha ay soo jeediyeen, walow sharciga iyo sharciga qaranka ee markaasi aynu gacanta ku haynay aanu ogolayn qaabkii wax loo soo dhigay. haddana dan baynu u aragnay oo waa la tanaasulay oo ururada waa lagu ciiray laftooda oo xuquuq dastuuri oo ay lahaayeen baad moodaa in la riixay markaasi.
way labada doorasho waxay ahayd inta ururadu soo horeyso kadibna madaxtooyada la gala saddex xisbi qaran ee soo baxa tii waa tii la laalay xeerkii uu marayba golayaasha qaranka ee madaxweynuhu uu saxay saa dhaqangal uu ku noqday marka haddaba sidaas tahay ururadii weli qaar ka mid ah ayaa tabasho muujinaya anigoo ra'yigooda siyaasiga ku ixtiraamaya Abdullahi Xuseen Imaan Darawal oo ka mid yahay kuwa kale laftooduna qaarkood jiraan aan filayo marka taasina waxaan oran lahaa in xukuumadda talada dalka haysa iyo xisbiyada qaranka oo waliba qaarkood garta sidoodii loogu naqay waxaan oran lahaa in iyo komishanka doorashooyinka qaranku waa inta isu tagtaan ha loo yeedho oo la isu caqli celiyo oo hal la qanciyo ciddii tabanaysa wax ee ururada maanta jira ka mid ah intaasaan kulli waan ahaan oran lahaa ururka horseedoo kale Abdullahi Xuseen Imaan Darawal maanta uu hadlayayna isagana waxaan oran lahaa xaq baad u leedahay in ra'yigaaga siyaasiga cabirto wixii aad salugsan tahayna aad soo bandhigto midba laakiin meesha ku jirto ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye wuxuu yidhi abwaankii gaariye maxamed xaashin dhamac gaariye adoo wax ka qows qabsaday marbaa gafka loo liqaa inaan danta guud murgacan waa qiraynaa Cabdilaahow adiga iyo tobanka ururada siyaasadeed ee kalaba in berigii waqtigii hore ee doorashadan isasaarka la keenay odayaasha dhaqanku ay keeneen in idinka la idinku ciiray oo xisbiyada qaarkood tii ay doonayeen loo meelmariyey waa qiraynaa taasi waa i jirtaa hadalka lagama leexleexdo danta Somaliland awgeed maantana doorashadaas isasaarka ee dalkii aad arkaysaan halku marayo ee dana far badan idiga xidhayiin ee cadowgeynu gadaamana arkaysaan ee xasan sheekh u dambeeyay maanta u dambeeyay waa asmara ka digay intaasina agarta uu maleegay ay tahay jamhuuriyadda Somaliland iyo qarannimadeeda sidii uu u duudsii lahaa ina maantada lafteeda wixii aad liqi kartaan wax kastoo aad liqi kartaan oo culays oo la saaray dalka oo soo halganteen jacayl idinka haysa wax rag fara badan waa uga lexjecel badantiin cadowga waa u jawaabtaan marka waxaan idin oran lahaa in imikara wax fara badan idinkuna liqa marka intaasaan kulli taasina aan kusoo koobi lahaa su-aasha ugu dambaysa Cabdiraxmaan oo dad reer Somaliland oo aad weydiisay oo halkan gudaha jooga oo aad moodo inay cadowga maraga u furayaan ama xubno golaha baarlamaanka ka tirsan noqdaan ama siyaasiyiin xisaaabta macaaridka qaarkood ka mid ah noqdaan marka laga reebo injineer Faysal Cali Waraabe isagu mar walba cadowga si cad ugu jawaaba rag kale oo ka tirsan xisbiyada qaarkood oo waxaad arkaysaa ka dhigaya qadiyaadka maanta inay dhex yaalla madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland dal waliba wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa national interest yani maslaxadda waddankiisu u dhaartay oo ilaalinaya madaxweyne kastaaba ragga qaar baa ka dhigaya inuu madaxweynuhu uu khilaaf arrintiiba personalis gareynaya marka kuwaasina waxa la warday axsaabti xisbiyada qaranka qaarkood ugu tunka weeyeen warday haddii aan party discipline jirin oo qofkii xeerka qarannimada jamhuuriyadda Somaliland ku xadgudbaya idan wax ka qabanayn waxaan leenahay guuda qaranku xeeraryaha guuda qaranku ha eega arrintaas in dambi ka ratibi karo ninkii marka entity ahaan wadamada qaarkood ama madaxda Afrika qaarkood oo aan noo ogolayn darahaan inaynu jiro ninka maraga u furaya MBA maanta halkaasi joogay cashuurtii ummadda waliba mushaar ku qaadanaya tiyo dalkan loo soo baabaay oo loo soo rogmaday oo dadwada ku siqaya maanta ay jiraan inta dhibatay marka aad ka tagto dadkaasi waxay ay ku qanacsan yihiin ciidda iyo calanka iyo jamhuuriyadda Somaliland ee madaxa banaan marka dadka qaarkood tiyo dadkaasi say duruufta inta leeg qaranka loo soo maray haddana iyaguna si dheel waxyaaba qaar isaga oranaya waxaan leeyahay xeeraryaha guud ee qaranku waa inuu arrintaasi tallaabo mudakarnimaha ka qaada waayo haddii aanu qaanuunku shaqaynin oo aynaan birmageeda iyo xuduud yeelan qarannimo jiri mayno qof way wuxuu doonaa inuu iskaga hadlo ilaa xorriyadul qowl baa jira adduunyada kama jirto intaas ma ku soo koobi lahaa Cabdiraxmaan mar labaad iyo mar saddexaadba adiga iyo wax la miiriyaba waa u mahad celinayaa insha Allah taala ismaqal dambe oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بان مركل كوجم هاد علينا سلطان محمد سلطان أحمد سلطان عبد الرحمن سلطان ديريع وكهد لي مقالة ده هرجيسة عاصمة جمهورية الصوماليلاند وأنا وحكوا يديني أرمها حل جن تاجن أيوها وحي وحكها هي وحي تلاها هينا إن لو ذاقي مركل عيان سلطان كوم هاد نقيا